إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan aad iyo aad uga kurbaysanahay amaan uga xunnahay dagaalkaas ka dhacayo gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaan Warshiiq, Acdale iyo agagaarkeeda deegaanka la yidhaaho Burdheere oy ku dagaalameen laba beelood oo walaalaa. dagaalkaasna in badan uu soo noqday. habka loo xallihaayana waxaa ka fiican habooban soo naqahayn oo labada cidood iyagu ay dhexdooda raalli ka yihiin inay ku xalliyaan, raallina ay iskaga yihiin. aa loo baahan yahay. dhibaatadaas waa lagu leeday, dhib badanaa ka dhacay, dad badan loo baahnayn iyo khasaaro badanaa ka dhacay. boqolkiiba boqol waana ka xunnahay, waana ka kurbaysanahay. intii dhimatay waa ka tacsiyeynaynaa, inta jiraan oo dhaawacantana dhaawacooda allah caafiya ayaan leenahay. akhyaartana wixii lagu xalli lahay allah soo dejiyo. cid kale inaynan isku hadlayn ayaan aad iyo aad uga codsanaa, oo yan dhihin meel heblaan noogale maaha iyo hayihii mataqaanaa meel heblaan wax ka filanaynaa. ayagaa dhaqa jiray, ayagaa dhaqmi jiray, ayagaa derisa, ayagaa isku dada, ayagaa walaala, ayagaa isxog og. waa isxog og yihiin. qofti xog qalada wadana ha ka waantowdo, qofti xog saxa wadana ha la qanciyo. dhibaatadana maanta hadda ka bacdi yeeyan imaanin dagaalkaasna inuu istaago, waayo waxaan kulligeen wada rabno. waxaan meeshan u fadhinaa baaq nabadeed aan u jeedinayna beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanka khaasatan Acdale. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu colaadaas inaga joojiyo. wax baaqeynana wuxuu ku saabsan yahay beelaha walaalaha, wuxuu ku saabsan yahay in colaad maanta waxba ayna soo kordhinaynin. wiil inuu ku dhinto moogiyo wiil kuma dhasho. waxaa muhiim ah dhalashada in la fiiriyo. waxaa muhiim ah waxaa jira ilaahay mataqaan dadkan isugu nasiibay ehelnimada in la fiiriyo, baaqa dhaqanka la fiiriyo, baaqeena la fiiriyo, colaada nabad lagu bedesho. waa ognahay culaysyo badanaa jiro. annagana koley dabcan waxaan adkeynaynaa baaqyadii ay dileen dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo madaxdii Hirshabeelle. waxaan ka codsanaynaa oo kale in lala gaaro dhinaca gargaarka, maadaama meesha colaad ka dhacday baahi iska jirto, waqti kulul lagu jiro. ana ognahay inay u baahan yihiin caawinaad degdeg ah. marka ilaahayna waxaan ka baryayn colaad inuu ka baajiyo. waana u duceynaynaa rabbi raxmaanka walaalaha qalbigooda ah isku boogadhayo. annagana intaasaan ku baaqaynaa. waxaan rabaa halkaan maanta uu yahay baaqayna baaq nabadeed u jeedinayno musiibada ka dhacday agaarka Acdale ee Hirshabeelle. runtiina waa arrin aad iyo aad wax looga xumaado, looga argagaxo. dhibkii socday shalay maantaba aad iyo aad oo dagaalka labada beelood oo walaalaha ah oo isla deegaanka ah, dhibaatadii dagaalka uu sababay oo weliba dhimasho badan iyo dhaawac badan, iyadoo xilliga lagu jiran aan ognahay xilli weliba abaar weyn iyo kuleel weyn u jiro. deegaanka xaaladiisa aan ognahay. runtii waxaan aad iyo aad noo dhib haddaan nahay xildhibaanada ama senatarada Hirshabeelle dhibaatadaas masiibada sababtay dhimashada dhaawaca leh. waxaana rabnaa inaan halkaan uga baaqno, waanu soo jeedinaynaa baaq nabadeed oo ah in la joojiyo sida ugu dhaqsiyaha badan la joojiyo dhiiggaas qubanaya, dhiigga walaalaha ah, in la joojiyo. arrintana lagu bedelo wada hadal, iyadoo runtii ay tahay
mid diiniyan iyo mid muxuu ahayto dhaqanba ay tahay arrin xaaraan ah dhiig walaal in la daadsho. tan kale waxaan rabaa inaan yani baaq u dirno mas-uuliyiinta Hirshabelle iyo weliba ciidamadii halkaa deganaan jiray in ay runtii dhaxgal dhab ah inay sameeyaan arrintaana qadiyadaasna lagu baxo si loo joojiyo yani dhiigga walaalaha qobanaya. waxaan mar kale aanu rabnaa in loo dhagnuglaado baaqyada kala duwan sida kuwa dhaqanka, kuwa siyaasiyiinta, kuwa dadka ehelka ah waxgaradka ah intaba in loo dhagnuglaado la joojiyo dhiiggaas qobanaya. waxaan rajaynaynaa insha Allah in yani masiibadan ilaahay yani u istaagto, ilaahayna maagto naga najeeyo maxay tawaaqibteeda yani waa la arkay dhibaatada sababtay waana soo noqnoqoto waana ognahay inay noqoto mid markaan yani laga gaaro yani heshiis taam ah halkaan yani oo waara halkaan ku istaago dhiigan soo noqday oo qubanayo walaalaha. waa baaq on ka codsanayno walaalaha halka dhiiga yani ku daadinayo dhiiga walaal yani dad badan ay ku dhinteen, dad badan ay ku dhaawacmeen ay barakac badanna uu sabay. aad iyo aad ayaan rajaynaynaa insha Allah taala wa billahi tawfiiq.